بسم الله الرحمن الرحيم وحمانته فرحد وين وقول وين dadka Soomaaliland iyo shacbigeeda annaka oo maanta madaxweynaha dawladda Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinayo oo maanta la kulmay iyo wafdigii la socday balaadna waliyaal ahdiga Sheekh Maxamed bin Zayed iyo wasiirka madaxtooyada Sheekh Mansuur bin Zayed oo laba shir lay kala yeelanay labada shir oo aad iyo aad muhiim u ahaa oo aan ka wada hadalnay mashaariicdii hore noo siiyeen iyo mashaariic fara badan oo cusub oo ay ka mid yihiin mashaariic ku lug leh biyaha iskuulada tacliinta tababarka dhan kasta oo xagga dhaqaalaha iyo cilaaqaadka labada wadan ee walaalaha sidii la isugu soo dhaweyn lahaa ayaan maanta labada kala hadalay sheekhba si aad noo soo dhaweeyeen oo aad iyo aad mugi u leh waxaan ku faraxsanahay inay dalabaadkii faraha badnaan maanta u qadinay naga ogolaadeen waxaan ku faraxsanahay sida weyn ee qadarinta leh ee maanta madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa loo soo dhaweeyay waxaan kaloo doonayaa inaan maanta idin sheego inaan shaqada ka soo noqday dalka South Africa horteedna aan ku maqnaa wadankan Ivory Coast ama Cote d'Ivoire leedah caasimadiisa Abidjan halkaas oo u tagnay aniga iyo wafdigii ila socday inaan la kulanno African Development Bank sida ula socotaan African Development Bank wadankeena waxay yimaadeen bishii March waxay mid wafdi ballaaran sideed qof ka koobnaa waxaan ka wada hadalay sidii wadanka wax loogu qaban lahaa waxaan wada saxanay memoir dawladda Soomaaliland iyo African Development Bank wada saxdeen oo ay ku jirto inaan ugu tagno African Development Bank si aan u daba socono follow-up ugu sameeyno shirkii aan ku yeelanay Hargeysa waan la shiray African Development Bank waxay ballan nooga qaadeen in ay arrinkii biyaha ee noogu ballan qaadeen iyo resilience-ka oo 9 milyan iyo 14 milyan oo biyaha in ay iman doonaan bisha Ramadaan dabadeed si ay waftigii iman doona uu sameeyay preparation kaas oo aan filayno sidii noogu ballan qaadeen in sanadda horteeda board of directors kooda approve garan doono aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa mar labaad African Development Bank waxtarkeena siinayaan iyo wada hadallada aan la yeelanay iyo si noo soo dhaweeyeen halka markaan ka tagnay waxaan u tagnay wadanka South Africa ayaan tagay oo lagu soo casuumay World Economic Forum-ka oo doorkan ka dhacay Cape Town sanadii marba Afrika ka dhacaa marka labaadna wuxuu ka dhacaa wadankan Switzerland meesha la Davos Cape Town waxay isugu midaan 2500 oo qof oo wasaaradda caalamka oo dhan ku jirtay Somaliland hadaan nahay wasaaradeedii waxa loo soo dhaweysiyay wasaaradda caadiga waxaanu ka qayb galay shirar fara badan oo ka socday meesha oo khaasatan aan ka ahaa panel arrin ku lug lahaa arrimaha nabadda oo dadku aad iyo aad u xiiseynayeen sida Somaliland iyadoo ilaa imika ixtiraaf haysan ay 25 sanadood xasilaani iyo deganaansho iyo nabad kaamil oo haystaan taasoo caalamka intooda badan door bidayeen oo ay jecel yihiin Somaliland heerka ay gaadhay ay ku biiriso contribution sidii meelaha dhibaatadu ka taagan tahay looga celin lahaa dhibaatooyinka waxaan la kulanay madaxweynaha South Africa waxaan la kulmay wasaaraddiisa khaasatan wasiirka madaxtooyada director generalkiisa wasiirka khaarijiga waxaan la kulanay wasiirro fara badan oo ka kala yimid wadano fara badan oo Afrika oo Ghana leh oo Rwanda leh oo Mali leh oo Cote d'Ivoire leh wasaaradda waxaan iswadaarsanay inaanu maaragtay cilaaqaad yeelano waxa ugu muhiimsanaanu meesha u tagnay waxa ahayd inaan dadka Soomaaliland iyo dawladeeda la barto la ogaado halkay maanta joogto iyo profile-keeda si kor loogu qaadi lahaa aan ku dadaalo kala hadallo inaanu nabad iyo xasiloona keenay maantana dadka Soomaaliland ay diyaar u yihiin in la aqoonsado iyo ictiraafkoodii marka waxaan filaynaa waxa ahayd laba mishiin oo ballaaran oo muhiim u ah dadka reer Somaliland iyo gabi ahaan ummadda shacbiga Somaliland